qofka saddexaad waxa weeyaan boqor buur madow oo hawshan intaanan labadeed wada hadal isagu isxilqaamay oo hawshan galay oo caaqan intuu uu ka dhiidhiyey ayuu dadku garanaya u diray waa loogu yeedhay way wada hadleen wuxuu yidhi wuu la sheekaystay bal warkaagaysii sidee wax u dhaceen sidee wax u jiraan wuu u warramay wuxuu u qirtay kuma been fariimayo boqorku uu nool yahay waa markhaatiga nool wuxuu yidhi gabadhayda waan ku khaldamay waa xaaskaygii waa ooridaydii waa marwadeydii qaladkaa aan sameeyey marada igu celi maaragtay magtana iga bixi mooradana iga bixi xaalmarintana iga bixi kolkaa isagu wuxuu ku talagalay boqor buur madow inuu gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaaye intayna ceebtu ama sii weynaan ama aanay isku tuurtuur noqon inuu isagu dusha u rito oo hawshaa ka odayeeyo waa sidii dhaqanna lagu arki jiray qof damiir leh ama qof ummad maaragtay u ah uqaal boqor ama suldaan ama ugaas u ah falkii u yeeli lahaa ayuu ku dhaqaaqay qoladii jilibkii ninka caaqani ka soo jeeday baa tiri ninkani wuxuu nagu doonanayaa magac annagaa isku filan reerkeygiiyo inuu baabiyo rabaa annagaa ninkan inankeygiiu yahay hawshiisa faraha nooga qaad arrintii dhanka kalea loo rogay kadib annagaa wada hadallay wuxuu yidhi farxaanow weji kale baashii yeelatay raggii waxay yidhahdeen bahashan faraha nooga qaad hadalkii ay tiri safiya tusmo walaashay qaali halkay kuwaasi sidaa khaldan uga fikiraya iyadu sida wanaagga ka fikiraysa leedahay arrintii in la dejiyo oo maaragtay la damaso oo aniga magacayga dad ku dhintaan ama dagaal ku dhaco ilaahay baan ka hoos galay farxaanow qofkii hadlaya please inuu maaragtay colaad la horiyo ma rabi wixii igaadhay marka waxa weeyaan dee calamtarana soo dhaaf weeyaane bahashii caawa waxaan u siixan waayay ilaa shalay aan u soo jeedo inuu gabadhayada dheemanta waxa weeyaan dee una geyin ya hawl sidan iminka nigeria jamaicanka london waxa hablo soomaaliyeed balanbalay ee loogu sameeyey madiido ama la baabay marka dambe isa soo garta oo maaragtay waa goor fare xeeriya fandhaal kala dhaceen ya balanbalaysa london way badan yihiin gabadhani uma qalanto qof ay isku wada jaan qaadi karaanna ma ahayn ilaahay baa wax intan ka waday waxay ahayd maaragtay mucjiso ilaahay ugu dambi dhaafayey walaashay qaali safiya tusmo hawshii aan sugaynay maslaxada laga taliyo oo iyadiina mar walba ay leedahay aniga in la ii aargudo oo xiniyataabad hay noqoto ma doonayo oo magacayga dagaal uu qof ku dhinto ilaah baa iga sarreeye ma dhisayo walaashay waa afkeyga inuu qof ku dhinto ama wuxuu ku gaadho dembiga anaa qaba aakhira halkeen maraya magaxumadii ama dhibtii laygu sameeyey inaan dib dad u geysto gabadh innocent gabadh aan waxba ka ogeyn oo dulmiga iyadu sameeyin inay tolkey hay dilaan ama nin hay kala dilaan dee waxa weeyaan arrintaydii unbaa meesha lagu sii galgalanaya tolkey maaragtay u shaadhigan welibana walaalkeed harkaa lagu hayaa inuu la dhex maro oo ku alle ku caaqan u arko haw maaragtay ka tallaabsado eese iyadaa ka hor joogtay oo annagaa ka hor joogno oo intii garaadlaa ka hor joogta hanjabaadii iyo lilmadii walaashay ka dhacaysay haddana inuu maanta intuu xabad u qaato uu geysto meel cidlo ah oo sidaa yidhaahdo oo baaskoolad madaxa ka saaro imikaan ku gogeyno bulaacaddaa kugu rida anaa meeshan xakuma nayaa siduu ula hadlayay qofkii damiir leh ee dadnimo leh ee soomaalina ee dhaqan leh ee diin leh
dhiigga kacaya ana xalay haddii aan ninkaa meel uu ka dhow yahay aan garanayo wallaahi oo bilaahi tiirkaa lay saaree wax weeyaan laban u kala goyn lahaa dese ilaahay alxamdulilah rabbilcaalamiin waa bir ramadaan iminka ma xanaaqsani ma caraysni adduunka wax walba dhacaan marka wax weeyaan dee magafa inuu hargeysa ku nool yahay ila shabaabku waa kuwa dadka way dilayaan nafta ka baxaysa dee walaashay intaasoo jeer baa la dilay ya oo taas u dambeysay meyd maxaa u dambeeyay kaa la sii shido waxa weeyaan gabadhii waa in magteedii la bixiyo dhiiggeygii la bixiyo iyo gefkaa la galay sidii tolnimo la arki jiray ee dhaqan la arki jiray ay isaa geedka soo fadhiistaan sheekh albeledkii waxay xurmaynayeen inay inantiisii suuqa la warwaro oo mid caaqahoo diin iyo iimaan lahayn takree labaad isagoo diintii rab ilaahay caayaya buu miidiyaha ku jiraa ninkani waa horta isagu waa dee wax weyn diintu ka baxay because publicly ayay ugu jirtaa isagoo diintii iyo ilaahay caayaya marka waa in horta dib u muslima oo maartay ashhaadada dib loogu qabtaa waa in anaga ninkaasi uu maanta hargeysa tamashlayn uu kolba Facebook iyo kuwa malayacniya halkan sidaa yeelayo ma qabino waa qabayo qabniin iyo waxa telefon ka hadii xabada hadaysatid Amnesty International waxay ku taalaa Muqdisho xuquuqul insaanka xafiisyadoodu Muqdisho ku taalaa ku yaalaan Somaliland waxaan ka rabnaa sidii ugu dhaqsaha badan leh sharciga inay dabaqaan oo ninkaasi noo laafiyoon hargeysa dhexdeeda waa ina sharciga wax weyn maanta waxa lagu hayaa wax cad ya inuu xabad intuu qaata baaskoolad inuu meel ay garanay intuu la tago ay tiraahdo sidii u hadlaysay caloosha ku xanuunaysa horaad ii biraysay warniyo hore inan meel qaarkood markaan marayo isma kala garanayo soo marka waxa weeyaan dawladdaasi waa inay dariiqiga marta hadday socon waayaan annaga sharciga gacantaan ku qaadanaynaa Amnesty International iyo Human Rights-ka iyo gabadhu waa Mareykan oo maartay saa loo bahdilay sida laga yeelay shabaab hele terroristigu hele magafa adduunka waa ka mamnuuc meeshii lagu arko waa lagu toogtaa xabsi daayin weeyaan ninkan waxa weeyaan waa in la xiraa oo walibana xabsi daayin lagu xukumaa sababtoo ah inantan annaga geel yaroo la bixiyo iyo mag la bixiyo way nagala weyntahay hadday tahay qof loo arkayo waa 10,000 oo hablaha Soomaaliyeed ayay sharaftay leeyihiin bay leedahay Safiya Tusmo inta waxay eegaysay lacag yar suuqada haday tahay waa irka soo dumay bay oran lahayd inuu lacag inta leeq uu ka qabo uu saa ugu hanjabo uu lacag inta leeq ka qaato oo ka dhigtaba resource meeshii socialki meeshii lacagta laga qaadanayo socialki inuu ka dhigto ya waxa weeyaan waa nasiib daro inuu intaana magaalada iyadii walibana kaaga dareen han warwar ka haynay inay bixitaanka ay baxayso ma hargeysay ka dhooftaa mise jigjigay ka dhooftaa farta dhuntan ku in boorama intaasoo habeen kolba xaafad la seexinay ya ayaan goobjoog ayaan u ahaa marxatiga nool oo saacad uu la jiray marka wax weeyaan maanta gabadheedu way noo bad qabtaa Soomaali intii sharaf iyo qiimo leh iyo dadnimo leh way ka wada qiiroodeen siiba dumar oo dhan waxay noqotay tusaale ay noqonaysaa haddii tusaale ka dhigayeen xumaan tusaale qaran weeyaan sababtoo ah sida dhaqankeyga asluubteeda waxaan oo dhan waxa soo gaarsiiyay intay isdhowraysay ay sharafta dhowraysay yaan lagu maqlin yaan la arkin sida masba galay masuubo ayaa u galay dharkeyga deese masuubadii ilaahay uu ka dejiya caaw ka dejiya intii hore
ciyaar bay caawa xalay intaan seexan uu ka degay maskii dhulku yaala madaxa inaan ka jabino ama ina godka lagu rido maskaasi inuu god ku jiro oonan indhihiisa iyo codkiisa iyo hadalkiisa dib u maqal waxbaan soo dhigayo waxbaan hayaayo antarbaqash hadday dad yihiin kuwani meesha tolkay u jawaabayay maxaa boqor buur madow isaga garansiiyey anoona la hadal inuu isagu intuu isxilqaamo 100 geel 300 geel oo burco ugu agteeda ugu waxaysan 100 baan soo qaadayaa oo farxaan oo inantu yeena iga tagin ha ii dhex joogsato 100 geelan keenaya war sharafta xagee laga helaa ay leeyihiin una bahdilayay reerkaaga anaga isku filaaniin maxaa kana in isku xaartiin ya war ilaahay ummadda ilaa waxa weeyaan waxaad ceebta u taqaanin bay amalkiisa tahay marka isa iyo geebursi sabroon ilaahay baa isbaday Soomaali bay wadayiin dal bay wada leeyihiin dad bay wadayihiin waa gacal iyo xigaalo meesha maartay dhaqan xumada iyo kuwa maartay caaqa ee meesha ku jira wixii xun Soomaalida waliba takara labada adduunku waagii hore wuxuu ahaan jiray waa la yiri minute haddaad geeska laga tuuro adduunka Australia Latin America iyo North America intaba isla minute kaaba la arkaya baashan wax weey walibana ana waligeed ka baxayn caaqani siday u hadleen iyo kani sidoo maanta walaashay ugu tuntay waligeed bay ku jiraysaa ninka inaan aragno oo taxtaxinaya hargeysa dhexdeeda jooga oo halaygu waxa weeyaan waa godob dawladda Somaliland wixii ay ku fanisay afar madaxweyne iyo doorashaan galay iyo dimuqraadi waana war aniga dulmiga ugu sameeysan waligay kama hel laba dul hooyaday adduunkan ugu jeclaaba ii diideen kuwii ila mid ahay ila shaqeynayna ayaan walba hargeysa joogeen nin xilka haya oo ayaa aabintuna dhiman Allahu naxariisay iyo u tagay oo ogolaateen wiis casilayo wiis sidameeyo media halkan ka aragna warqadna halkan ka aragna isagoo hadlayna halkan ka aragna anigu waniga hadlay bande wax weeyaan iyaal anagu manihin waa arkayna nin la u doobiyay weeyaan halkii doobiyay ninkii naadarkay doobiyay oo nin la u doobiyay weeyaan bahashan lagu wada joogi maayo hadday discrimination iyo maartay cadgoosiga inta leh marka waxaan sheegayaa dawladda Soomaaliland hanaga soo garbaxdo Britol waa jimce ورمضان ولبنا وعيد وين جمعة وعيد وانت وخميس عافية مسامح السلام عليكم